محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو فرماجو igo ku bilaabay magacaaga ee ku soo dhaweeyay Nuri Media waan dhawahay magacaygu waa Cabdixaafid Cabdiwali oka maxay weydiinaysaa maanta waxaan ku weydiinayaa sida wada ogsoonahay musharaxiin badan baa dawladda federaalka Soomaaliya ee kursiga ugu sarreeya ku tartamaya musharaxiinta musharaxeebada ee wadata ama jalaan leeyahay inuu ku soo baxo doorashada daan musharaxan dooran lahaa ka shakhsi ahaan waa madaxweynaha dalka wax ka bedelaya haddana anu isbedelkiisa aan hore u aragnay waa Maxamed Cabdi Ilaahi Farmaajo waxaan ku dooranay waa nin siyaasi ah dawladda wax badan u qabtay waxyaalaha qaar xidaysan madaxweynaha kale qaban uu qabtay oka haddii lagu dhaho musharaxiinta kale laba musharax ka taatir siyaasadda yaad ka taatir lahayd kuwa tasamaya waxaan ka taatir lahaa xasan sheekh maxamuud iyo dane maxaa dhacay horta dane dee garow waxa fiican ma ogtahay meesha aad maraysid inaad marka hore u dhaaftid waxa fiican inaad dane isagaan tiisi ka dhammaan buu tiisi Soomaaliya u soo wareegay waa ta koobaad waa ta labaade xasan sheekh maxamuud dhaleecayn badan buu leeyahay waa halkan kuma soo koobi karo far badan tahay fariinta labadooda u dirsan maxay fariintan u diray waxay talawada dee isbedelkeena oo aan isbedel halay ku bilaabay magacaaga ee ku soo dhaweeyay Nuri Media waa dhawahay walaal maxamed Dobiro way galabta caawa su'aal baan ku weydiinaynaa shaytoonka bishan dawladda federaalka Soomaaliya waliba caasimada Muqdisho waxa ka qabsoonaysa doorashada madaxda Soomaaliyeed sax musharaxiin badan baa tartamaya sidaan wada ogsoonahay musharaxiinada adigu dheerayd doorashada waa jalaan lahayn in la doorto ama uu ku soo baxaya horta dawilka abtiga loo yahay Farmaajo laakiin inta xagga la gaarin Soomaaliya bay tan la wada gaarin inagu teena ma ka hadli karin inaga khaasatan hadeen dhubaatanahay teena ma ka hadli karin inta Soomaaliya la gaarin wala Puntland wala meel kale teena danteena caadiga ma ka hadli karin oo inagu dee aan wax fari karin teena ka hadal caawado teena ka hadlo halle dad baan arkay dhalinyaro soo duuduwa sakili baan arkay xildhibaanka yaalna hadlaya war xildhibaanku maalintuu dee xildhibaan noqdo baa kugu dambaysa adiga xildhibaan maanta xildhibaan noqdo baa kugu dambaysa sababtoo ah xildhibaanka isaga waxa markaliya waa lacag wuxuu meesha u joogaana waa lacag iyo reerimo ku joogaa ma fahamtay marka dee lacag uun baa ninka hadii xilmaanka lacag loo sheego dee wuxuu doonu sameeynaya marka dee waxaan leeyahay danteena horta inagu teena ka hadalay intaan tanta macnii dadka kale aan gaarinba walaa Soomaaliya walaa wax kale teena shakhsi ahaanteena aan ka hadalo mid kale waxa ku dhacaysa su'aasha kale waxa ku dhacaysa musharaxiinta kale wada tartamaysa haddii lagu dhaho laba qof siyaasadda ka taatir yaa taatir lahayd labadeen horta waa taatir laa nin la dhaho horta magaciisa ma kare maxaa la Cabdiraxmaan Cabdishakuur Shacuud ma laha Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo nin la dhaho isagana Xasan Sheekh Maxamuud labada horta waa ka taatir lahaa siyaasadda waa ka taatir lahaa diyaar gacal nimankii marka Soomaali marka laga hadlo badal maanta Farmaajo soo celiyay nimankii bixiyay ee iibsaday lacagta siistay hadeen ma haysa cadeen ma hayo laakiin hees waxa oran jirtay kuwii dalkayga iibsaday dooxadii warnayd docna noo hambeyn dooran mayno mana dooran doono fahanti marka bulshada fariinta u dirso marka bulshada waxaan leeyahay niyow ilmaad heerayaan doorashada marka laga yimaado doorasho ma kala dhaho dee ninka hadda madaxweynaha ugu fadhiyay baa madaxweynaha leeyahay dooran taa madaxweynaha marka laga yimaadana dee inagu intaan meel kale gaarin tanaynu joognaa inagu tan aan ka niraano xagin joognaa talaas caano inaga dhulbaahanta ahaan tanaas caanooda aynu wax ka dhahaa waxaanu naqaanaa inaynu meelaha ororano dee meel aynoo bannaanen waddaba inooga bannaanayn inayna ororano Facebook ay meelaha wax la uruureegno laakiin waxaan kaga baxayaa tanaan wax ka nirahan adigoo ku bilaabaya magacaaga ee ku soo dhaweeyay Nuri Media walaal waan dhawahay magacaygu waa Axmed Maxamed Yuusuf way soo dhaw waa dhawahay walaagaan Axmed way sida la wada socono shaytoonka bishan waxa doorasho waxa ka socota dawladda federaalka Soomaaliya musharaxiin kala duwan baa u tartamaysa madaxda ugu sareysa ee dawladda musharaxiinta tartamaya musharaxiibada guul u rajeynaysa hadii caawa lagu dhaho Axmed kibaad adigu dhihi lahayd doorashada ku soo baxo insha Allah saaxiib horta waxaan dooran lahaa horta saddex madaxweyne baan anu rajeynaya laakiin mudnaanta koowaad waxaan siin lahaa waa Farmaajo mudnaanta labaad waxaan siin lahaa ninka loo yaqaan Sheekh Shariif
mudnaanta saddexaad ee soo hadhay waxaan siin lahaa isla rajeynaya haddii labada nin ay tagaan lacala ay guulaysan waayeen ninka saddexaad isleeyahay insha Allah dee aan rajeynayo inuu dee ninka afraad aan isleeyahay waxa weeye waa khayr maxaad ku kala doorto saaxib horta dee nin dalkiisa iyo dadkiisa u dhisayo dee waad aragtay horta dee farmaajo wuxuu dalka dee wax weyn buu qabto heer buu gaarsiiyey oo badii buu soo dhiciyo waxaan ku yidhi dee nin dad ka taliyo magaranaysa buu noqda ninka kale xiga Sheekh Shariif isna hore dee loo magaranaysa labada lugood uun baa la jaray dee isba xoogaa dalka uu yara dhaqaajiyay magaranaysa ninka kale Xasan Cali Khayre ku soo haray Xasan Cali Khayre dee isaga horta ma doorteen oo waxaan dee saddex nin aan dooran lahaa waa farmaajo Xasan Shariif iyo Sheekh Shariif iyo hadii alla iyo khayr marka saddexda waa doortay musharaxiin badan musharaxiin kala tartamaysa qaar siyaasadda ka tirtir hadii lagu dhaho labadeebaad tirlay warto dani ma aragtay ayidii baad aqal leedahay ma doorateen magaranaysa horta dani waa ka taatiri laashan meesha soota Puntland wax ka qaban waayay yaa wax xil dhiganaydi ninka kale aan ku soo intaasna doo iga afgaado magaranaysa madaxda ma aragtay ama afgaadiyo marka ninka kale aan ka saari lahaa waa Sheekh Shariif soo doortaa dee Xasan Cali Khayre iyo Sheekh Shariif iyo farmaajo dooratay Xasan Sheekh way gaajido Xasan Sheekh Shariif Xasan Sheekh ورد كان ما كاسن دورنا وي فرينت maxaad bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysan maxaad fariin u diraysaa de waxaan u dirayaa annabayo cadaalad dadku haduu rabo iyo magaranaysa ilaa alla ka cabsi hadii la sheego de ninka farmaajo nin dhaamalama haye de ninkiina maartay isaga markii waad iyo mudnaan iyo saddexaad ba doortay aad baa mahadsantahay adigoo ku bilaabay magacaaga wareen ku soo dhaw Nuuri Media bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Macruuf waana ku dhawahay YouTube-ka Barkhad Nuuriya Media معروف هو سؤال بان maanta ku weydiinna 15 bishan sidaan wada ogsoonahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka qabsoomisa doorashada madaxtooyada musharaxiin badan baa tartamaya musharaxiinada adigu jeclaan lahayd in Soomaaliya uu hogaamiyo horta horta waxaan dooran lahaa hadii madaxweynimo noqoto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa madaxweyne mintaqana wax badan qabtay hadaan dhalinyarta sports-ka nahay gobolka Sool waxaan jeclaan lahayn inuu soo baxo madaxweyne محمد عبد الله فرماجو وانا رجينا وانا كهن وينها انه نو سو لابت مر لباد bulshada Soomaaliyeed maxaa la doortay bulshada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa ama xildhibaanada waxaan dhihi lahaa si cadaalad ah u doorta qofkii dalka iyo dadka iyo diinta si wacan wax ugu qabanayo marka anagu wadan nahay dhalinyarta waxaan dooranaa farmaajo dhalinyarta gobolka Sool waxaan leenahay farmaajo way musharaxiin badan baa iyaguna tartamaya hadii lagu dhaho laba musharax ka reeb oo ka tirtir siyaasadda yaa ka taatirlay horta hadii la dhaho ka reeb runaantii waxaan ka reebi lahaa Xasan Cali Khayre iyo Sheekh Shariif sababta aan reebi aan ku sheego sababta waxa weeyaan qofka marka wajigiisa aragto inuu cadow yahay iyo inuu mataqaanaa dalka xuquuqda kala garanaysa Xasan Sheekh anu markii hore waxaan aaminsanaa Xasan Sheekh inuu ka wanaagsan yahay farmaajo oo markii hore labadaba midaysanaayeen laakiin markii dambe wuxuu la soo baxay wajigaas oo tusay inuu mataqaanaa waji fiicnaan ahayn oo waa khayr anu khayr horta calaamadiisa waan iska tuuray mar rabo inuu soo baxo Xasan Sheekh sidoo kale isna wajigiisa waan arkay labaad adigu farmaajo waxaan ku taageerayaa horta wax badan buu dalka u qabtay dad farabadan tahriibay wax uu qabtay kuwa hadda jooga wax uu qabtay kuwa maqnaa wax uu qabtay ciidankii uu dhisay amnigii uu dhisay ma sha Allah in sha Allah sagan rajinaya mar raasaba musharaxiinta maanta tartamaya hadii adigu caawaad codkaaga xildhibaanimo aad ku dooran lahayd oo teendhada 15ka doorashada ka qabsoomay aad ku sugnaan lahayd codkaaga 100% maxaad ku cadeyn lahayd inaad isagu ugu ridlay waxaan ku cadeyn lahaa qof walba wax qabtiisa ma ogtahay marka anigu hadaan halka joogi lahaa ama aan nasiib u yeelan lahaa waxaan dooran lahaa farmaajo waxaan ogahay codkaasi hadii xataa loo codeyn lahaa macnaheedu shakhsiyan shacabka dadweynaha hadii ay codeyn lahaayeen waxaan hubaa 99% dhibic ma ahaane inta kale inay farmaajo ugu ridi lahaayeen dhibicdaas oo hadheena waa mucaarad kuleba guud ahaan gobolka Sool iyo deegaanada ee Sool Sanaag iyo Cayn bulshada ku dhaqan fariinta u dirayo Sool iyo Sanaag iyo Cayn horta saddexda gobol inkastay Soomaali ay yihiin adana ay raacsan yihiin Soomaaliya
kana tirsan yihiin goboladaas Soomaaliya dadka ku noolna waxay taageersan yihiin Soomaaliya waxayna taageereen farmaajo waxayna rabaan in codkooda ay ku soo saaraan farmaajo gobolka Sool anaga kamid ah dhalinyarta waxaa gobolka Sool sports gobolka Sool ba kamid ah waxaanu taageersanahay oo aanu daawanaa 15ka May aan dhalooyinka daawanaa hadaan dhalinyarta reer Sool sidoo soo bixi lahaa farmaajo waxaana balana maalinta farmaajo soo baxo in Sool iyo Sanaago dhan laga kacayo dhalinyarta sports ka kacayaan waka mitiga lahayd doorashada ka hormarso waa balan waan tagayaa waa balan hadduu soo baxo farmaajo waa liiginayaa waka farmaajo ka dhacsan way aad ba mahadsantahay salaam.